بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال كسو دوادا برنامجka kulanka xamdi oo aanu aalaaba in kaga soo gudbino TV-ga Universal Studios magaalada Nairobi barnaamijkeena kulanka xamdi maanta waxaanu kaga hadli doonaa xijaabka iyo faa'iidada xijaabka uu leeyahay iyo sida diinta islaamku ay kaga hadashay xijaabka iyo dumarku inay xijaab qaataan iyo fahamka bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dumarku ay ka qabaan xijaabka waxaan nagala qayb galaya sida aad arkaysaan gabdho Soomaaliyeed oo ka kala yimid xaafadaha magaalada Nairobi qaasatan xaafada Islii waxa barnaamijka marti inoogu ah gabdho iyaguna wadaada ah oo si weyn u yaqaan diinta islaamka si badan uga hadli doona xijaabka iyo faa'iidada uu leeyahay iyo diinta islaamku sida uga hadashay hadii aan ka bilaabo dhankaygan soo xigta waa ijaaba maxamed waxa ku xigta Firdawsa Sheekh Xasan sidoo kale waxa barnaamijka iyadana qayb kamid ah nagala qayb galaysa Faadimo Maxamed Daahir oo loo yaqaan Faadimo Ayaan iyo sidoo kale Zainab Abdi Saraar waxa ku xigta sidoo kale Maryan Shariif oo iyana kamid ah gabdhaha nagala qayb galaya barnaamijkan xijaabka iyo faa'iidada xijaabka uu dumarka u leeyahay waxaanu kaga hadli doonaa xukunka islaamka ay ka qabaan xijaabka maxaa dhibaato ah oo lagala kulmo xijaabka laftirkiisa oo kala kulmaan bulshada marka aan ka hadlayo ma diinta islaamka wax lagala kulmayo intaanan u guda gelin xijaabka iyo mawduuceena maanta waxaan jeclaan lahaa si bal dadku ay u wada fahmaan guddigan waa xijaabanahay laakiin waxa laga yaabaa qofba nooc inuu xijaabka u fahmay muxuu yahay horta xijaabka dhabta ah waxaan siin lahaa Faadimo Ayaan xijaabka hadaan ka hadalno ma huwa xijaab mesela xijaabka waxa weeyaan markii luqad ahaan laga hadlo xijaabka kelimada macnaheedu waxay tahay waxa weeyaan wax la isku xijaabo la isku dado oo la isku asturo hadii aan ka soo qaadano sharciyan xijaabka muxuu yahay waxa weeyaan maro waasac ah thoobun waasicun tatahajjabu bihi almar'atu almuslima من أعلى الرأس إلى منتهى القدم تستر جميع بدنها. هدي أن ما أركتاي أن سيوض هذا الكيغا حجابك إنه يهي مرة واسعة ويهوين إذا اسكد ديسو وحاو الدليل قولك إلهي سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى سورة النور آية 31 وحكو يري وقل للمؤمنات وقل وحتر هذا نبي محمد أما قفي ومسلم كللمؤمنات هوينك مؤمنات كأه يغضضن إلي معناها أي هوس إنه هذا الدذان من أبصارهن أرجوذا ويحفظن أي إلى ليان فروجهن فرجيال كوذا ولا يبدين أين صوم وجن زينتهن أي قروح ذوذا إلا ما كي ظهر منها كظاهري وليضربن هكد ذان بخمورهن خمار كوذا على جيوبهن قربه ذا خماركها كددان ولا يبدين أين الصوم وجنين زينتهن أيغا قروح ذوذا إلا وحي أمو جنيان لبعولتهن رقوذا يا أبيالكود أو محيطو إن رقوذا أبيالك دالين عرورتي أيغا أي دالين عرورتي رقوذا أي دالين ولا لهوذا إيو وحي ماركتاي محارم توذا إن هدان سومالين هاي نوان محارم بدن هاي تاسنا وان فلقين دونا مثلا ياد كحجابن يستايادن كحجابنين إن فاطمة waxaan jeclaan lahaa waxaad sheegtay in xijaabka horta muhiimadiisu ay tahay asturaad qofba nooc ha u qaato in asturaad laftirkeeda waxa laga yaabaa qofba si inuu u fahmay qofba wuxuu sameystay xijaab in hadda aniga wax xijaabanahay san aaminsanahay abaayadan wata qamaarna waa qaatay gabar surwaal gashatay shaar dheer qaadatay gabar baa iyadana labiski waxay ka dhigatay goorno dheer oo 10 yaardo dhulka ay ku jiidaysa bar kamid ah iyo 10 kale kor ka huwatay waxa laga yaabaa in qofba qofka kale markaas uu arkaa inuu asagu qaldan yahay xijaabka ugu qurxoon oo qofka la dhihi karo islaamka xijaabkaas sax ah si ay gabdhuhu wax uga fahmaan waxa jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala sida horaaba loo sheegay quraankiisa wax uu uga tagay ma jirto ma faradna fil kitaabi min shay wax walba quraankan kada waa lagu sheegay haddii aan soo qaato mawduuca xijaabka مثلا nin walba sibuu ma aragtay xijaabkii uu fahmay الفهم الصحيح wuxuu yahay gabadha muslimada ah jirkeedo idil inuu horta cawrayahay culimada xataa masaa'ishaas way isku khilaafeen laakiin raajixa waxa waayay haweeneyda muslimada ah waxa waajib ku ah jirkeeda kale inay qariso ila الوجه والكفين أنا سيدا صلاة أي وجهك وفيدانيسو أو لبدا عكر وقعمهنا أي وفيدانيسو علىها مثلا يا سيدا سوكاليتو أي ما أركتاي إن لو باهنيهاي إن أي ما أركتاي
xijaabkii intaa inay macnaha iska xijaabto haddii aan soo qaadano xijaabka alfahmu saxiix maalan horta xukunkiisa aan isweydiino horta muxuu yahay ma waajibba ma sunna muxuu yahay maalan xijaabku waa waajib aayadda salaada ina amartay oo soonka ina amartay mideeda kale ayaa xijaabka ina amartay horta gabdhayahow muslimaadka waa inaan sidaa u aqoonsanaa xijaabka min fawqi samaawaati sabci buu ilaahay ka soo dejiyey 1400 sano ka hore ayaa maartay la soo dejiyey annagoo maalan caadooyinkeena taqaaliidkeena iska wadano laakiin fahanka saxiixa ah ilaa hadda lama hayo maartay oo looma wada dhanno marka waxa loo baahan yahay shuruud ayuu qabaa shuruudiisana waan tirini doonaa ayadoo maxay to aan sheegi doono oo qowliyan iyo ayadoo examples aan u soo qaadanay maalan Faadumo waa mahadsan tahay barnaamijkeena waxaanu kaga hadlaynaa xijaabka iyo faa'iidada uu leeyahay iyo sida islaamku uu u jideeyay waxaan jeclaan lahaa maxay tahay shuruudaha asaasiga ee horta xijaabka uu leeyahay diintu ay ogoshahay shuruudda xijaabka waxa weeyaan midda ugu horeyso shuruudda saxiixda oo culimada isku waafaqday waxa weeyaan istiyaabu jamiicul badani illa mastuthniya in uu maartay caamimo xijaabka jirko idil ilaa wixii laga istithnooday oo taasoo wajigii iyo labadii gacmood macnaha laga wado shardiga labaad waxa weeyaan an la yakuna zinata fihi wa inaysan qurux ku jirin xijaabka wa inuusan bilic lahayn wa inuusan ubaxya iyo sawiro lahayn oo maaragtay araga soo jiidanayo wa inuusan lahayn qodobka saddexaad waxa waayay an yakuna inuu ahaado fadfaadan ghayra dayiq wa inuu waasac ahaadaa kaasoo maaragtay qofka ka kala degaayo kaasoon sawiraynin qofta jirkeeda qaabka uu yahay iyo maartay xibintu ilaahay siiyay aan sawiraynin qodobka kale oo maxay ahayd shanaad waxa weeyaan an la yakuna mubakharan mutiiban wa inuusan bakhuur lagu shubin cadar iyo maartay uunsi iyo waxyaalo carfayaan gabarya muslimadda ah wa inuusan xijaabkaaga qabin bal ka waran hadaad istiraahdo maxay ahayd xoogaa marka gabdhaha walaalaha maartay muslimaadka aad booqanaysid ama salaamaysid wax ka soo carfaa la rabaa jikadii baad ka soo baxday bal xoogaa carf isku day billaahi calayk innamal muslimu nadiifun nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri al muslimu nadiifun fatanadafu fa innahu laa yadkhulu jannata illa nadiifun waxa waaye islaamnimada ayaaba nadaafad ah cadarkaaga baquurkaaga gabarya muslimadda guriga ku dhex isticmaal sidaa doontana ugu isticmaal nooca doontana dhar u xiro maxaariimtaada adigoo kula joogaan balse markaad banaanka u bixaysid waxa la doonayaa xijaab kaamil oo mustakmil ah waasic oo ma aragtay غير mutiib oo cadari waxba lahayn kaasoo maxay aheeto ma aragtay ka dhigayo qof sharaf la مثلا sidoo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri dhalika adna ta ayaa waxay u dhowdahay an yu'rafna illa aqoonsado oo fala yuudina aan la dhibin oo shayaadiinul insi iyo jinniga ayna dhibin qodobka kale waxa waaye an la yushbiha an la yashbiha libaasul kaafiraat haweenka kaafiraadka oo ghayrul muslimaadka dhar gooni bay leeyihiin oo maartay u go'an dharkaas waa inuusan u ekaanin waa inay marada gaabnaanin waa inuu miniskaat uusan ahaanin waa in miniskaat hadaa doontay wax alla waxaa doonta gurigaaga gabariyay quruxda badan gurigaaga ayaa lagugu fasaxay balse banaanka markaa u soo bixaysid waa in dharka libaasul kaafiraadka u eg waa inaadan xiranin taasaa lagu leeyahay qodobka kale toddobaad waxaa waayay aan la yushbaha inuusan u ekaanin libaasul rijaali dharka ragga waa inuusan u ekaanin surwaal iyo shaar maalan ragga ayaa lagu aqoonsaday oo curfiga maalan lagu aqoonsaday bal ka waran gabariyay quruxda badan oo ilaahay xijaabka quruxda badan uu siiyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala maslaxadeeda uu gartay hadaad surwaal iyo shaar ta isku taagtid halka istaagtid wax ka foolxun ma jirtaan u maleynaya qodobka sideedaad hadaan soo qabano oo wal akhiir oo u dambeeyo Allah yakuna wa inuusan ahaanin libaasu shuhra dharka ma arta loogu tiragalay munaasabooyinka مثلا sida yahuudo kale nidaam oo waxay keentay aroosyada in lagu aqoonsado maryaha needka la dhaho oo cadcad oo burgaca weyn kor looga tolo
oo ma aragtay gabadhi cawradeeda banaanka soo dhigaayo oo maxay ahayd xabadka loo qaabinaayo taa markaad marada aragtid waxa kugu soo dhacayso inay tahay mara aroos loogu talagalay gabadha Alle waa aroosad waa la galbinaya maradaas oo kale waa ka xaaraan gabadha muslimadda inaad xijaab ahaan aad u isticmaashid ayadoo marka hore xaaraan sii ahayd waxa kale too jirto dad baa waxay sameystaan مثلا waxay ku dhahayaan anaga waxaan ka dhalanay royal family waa inaan xiranaa maartay libaas oo khaas ah oo maartay dadka ka dugan taasoo maartay soo galayso takabur wax la dhaho ay soo galayso oo ama tafaakhur faanfaan taasoo loo baahneen gabigeedaba ama ma ahe مثلا waxa tiri cibaadadii baan ku xeel dheeraanaya oo waxaan sameeynayaa zuhdi baan sameeynayaayo maxay ahayd waxaan xirnay qamiis nooc kale aan tolanaya ama xijaab nooc kale oo unique ah oo dadka ayna fahmaynin macnaha ay dadka gooni ahaan igu soo attract gareeyaan soo waxaan ahay مثلا suufiyada oo kale waxaan ahay qof oo ma aragtay aad tazahud u sameeynayo taana waxa soo galaysa qodob riya la dhaho status la dhaho taana looma baahno qodobkaas sideedaad oo shuhrada ah inta badan waana laga helaa marka ilaahay ma haynaga dhaafo أجري حسنات الله كسيو فاطمة أيان وحي سوي إنه شرح ذي إن شروطها أساسية اللي جبها هي القفطة مسلمة ده قاعدين يس حجابك نوحن جعلنا لها مرة دي شروطه اللي شاقي وحنوبه لها بالفضل أوليها إن حجابك لقاته وقفك الدمر كأه إسلام كأه إن قاعدة أمهم كويها وحنسين لها سينب بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد التحية wixii aan oran lahaaba walaashay Allah xasanaad ka siiyo ayaa dhahday oo maxay haytooy xijaab wuxuu ahaaba in fahansiisay laakiin anigu waxaan sheegayaa kelmado yaryar oo gabadha muslimadda xijaabka marka ay qaadato fadliga ay ka helayso xijaab horta macnihiisu walaalayaal waxa weeyaan an tastura almar'atu badanaha 'an ar-rijali alladina laysu min maharamiha gabdhaha muslimaadka ah inay jirkooda ka asturaan ragga aan maxaarimtooda ahayn oo ay maxay haytooy ay kulan ama xaafadha kula noolaadeen ama maxay haytooy guriga ku wada noolaadeen ama dariiqba ku wada kulmeen inay badanigeeda oo dhan ay gabadha muslimadda ah jirkeeda ay ka asturto ayaa walaalayaal loo baahan yahay looma baahna sida hadda aynu inagu sameeyno gabdhaheena muslimaadka say u badan yihiin inay sameeyaan xijaabka marka ay suuqa u soo baxayaan inay soo xijaabtaan markay guryaha joogaan walaalayaal ay garbasaar yar iska huwadaan oo aanay ka xijaaban ragga guriga kula nool iyo kuwa deriska la ah sidaasna Allah raxmaankii maanu oran waa aayad samaawiya oo xagga samada walaalayaal ka soo degtay Allah raxmaanka sida aad maalin walba salaadu inay faral kugu tahay aad u og tahay oo aad alxamdu maalintii 17 ragcadood aad tukatid aad maxay haytooy aad ugu celcelisid ayuu xijaabkuna wuxuu la mid yahay aayada alxamdu ee aad akhrinayso 17 jeer ayuu xijaabkuna la mid yahay oo samada uu kala soo degay sida laajigeed walaalayaal waxa la rabaa gabdhaha muslimaadka ah ee diinta ka run sheegaya waxa la rabaa in ay xijaabka sidoo yahay ugu dhaqmaan li'anna maxaa yeelay inagu muslimiin baynu ka ab عن كابرين وحين اللي نقصوا قارئ إنه نهاي مسلمين
mayna nihin dad hadda diintu ku cusubtahay oo hadda diinta qaadanaya balse cagsi bay noqoto waxaad moodaa dadka hadda xijaabka xaq diinta soo fahmay inay xijaabka inagaga adag yihiin oo inagaga fiican yihiin sidaa la ajligeed looma baahna gabadha muslimadda marka ay xijaabka xidhato xijaabku muxuu u tarayaa oo u siyaadinayaa فالحجاب حراسة شرعية لحفظ أعراض ودفع الأسباب والريب والشك والفتنة والفساد حجابك قبل مسلمات دا وحوك إلالينا يا هرتا أعراض دا أيو إلالينا يا إيو شرفت دا قبل مسلمات دا عرد جيدو إلالينا يا وحونا كإلالينا يا فتن إيو فساد قبل مسلمات دي إنا يكون عضو أيو كإلالينا يا حجابك طلبات وحوك إلالينا يا حجابك ظهارة القلوب قلبك أيو نورين يا فالحجاب داعية إلى ظهارة القلوب للمؤمنين والمؤمنات وعمارتها للتقوى قواد مسلمات دا مركي أي حجاب نينكا إيو قواد باللبضة قلبك وظهارين يا حجابك لأن محايا لي قواد مسلمات دا ولاش يعني مركي تلك إذا أسطرتو أي قارسو نينكي وكبت بادا يا إشي سي إيو مسكحدي سي عقلي سي ووبت بادا يا نينكا لأن waxay ishiisu ku dhacdo maba arko gabadhii jirkeedii way asturatay sida la ajligeed qalbigiisii iyo gabadha muslimadda qalbigeediiba taqwa ayaa ka buuxsanaysa waxaana u daliila liqowlihi tacaala dhalikum kaa laga soo sheekeeyey oo xijaabka ayaa adhar u muuqanaan badan liquluubikum quluubta ragga iyo wa quluubihinna dumarka quluubtoodaba وثالث كصدحات مكارم الأخلاق ويان oo looga baahan yahay uu siyaadinaya gabadha muslimadda markay jirkeeda xijaabka ku raariciso الحجاب داعية إلى توقير المكارم الأخلاق من العفة والحياء والقيرة gabadha muslimadda horta markay xijaabka xidhantahay oo ay jidka marayso aayad qur'aan oo soconaysa weeyaan oo luga loo yeelay korkeedana waxaa ka muuqanaya islaantinimadii xishoodkii cafaafkii dhowrsanaantii ayaa gabadha ka muuqanay gabadha muslimadda ee xijaaban waxaa walaalayaal looga baahan yahay inay ahaato gabadh qiiro leh oo dareensan xijaabkan waxay u xidhatay inuu aayad ilaahay yahay haddii ay xijaabkaas siduu yahay u xidhatana ay janno ilaahay ku gelayso haddii ay dayacdana cadaab inuu u soo jiidayo oo ayadoo adduunkii ku kululaatay oo xijaabkii xidhan inay aakhiro markay tagtana cadaabkii ilaahay gasho li'anna maxaa cadaabkaa keenay way dayacday adduunka markay joogtay ragga qaarna waa ka xijaabanaysa qaarna kamay xijaabanayn oo markay suuqa usoo baxaysay xijaabanaysaa waxaa laga yaabaa in adeerkeeda labaad dadka qaraabada inaanayba ka xijaabanay u aragto walaalaheed laakiin aayadda ilaahay inoo soo dejiyay samaawaadka soo dejiyay maaha maxaarimta waxaan ahayn oo dhan waa laga xijaabanaya walaalayaal afraad waxa araabicu alcalaamaatu cala alcafiifaat maxay tahay calaamaadka lagu garanayo gabdhaha cafiifaadka alxijaabu calaamatun sharciyatun calaa xaraa'ir alcafiifaati fii cifatihinna wa sharafihinna wa bucdihinna min addanasi warayba washak gabadha muslimadda xijaabka markay xidhato waxaa muuqanaysa inay tahay gabadh cafiifa ah waxaa muuqanaysa inay tahay gabadh dhowrsoon waxaa muuqanaysa inay tahay gabadh sharaf leh waxayna ka dheeraynaysaa xijaabkaasi xumaanyaal oo dhan ayuu ka fogeynaya gabadhu xijaabka aynu hadda xidhano maaha laakiin waa xijaabka samaawiga ah alle samada uu ka soo dejiyey weeyaan xijaabka markay gabadhu intaasoo shuruu ay yeelanayso weeyaan sidaa la ajligeed wax ciyaala suuq iyo wax mooryaana iyo wax joqoraa midna hawaysan maayo gabadha muslimadda liqowlihi tacaala baa u daliila daalika arrinkaa laga soo sheekeeyey oo xijaabka ah adnaa wuxuu u dhow yahay an yucrafna in laydinku garto gabdhaha muslimaadka gabadha halkaa maraysa inay muslimaad tahay waxaa lagu garanayaa xijaabka ay xidhatay falaa yudayn markaa aan shadaadiini walinsi waljinni midna aanu idin soo hawaysan walaalayaal والسادس كصدحات حفظ الحياء ويان فلا حياة نولي ما جرتو بدون الحياء نولل ان حشود لهين ولا ليال نولل ماها لأن وحا لا ربا غبدha muslimaadka markay xijaabka xiran tahay inay codkeeda aan la maqlin inay tahay gabadh dhoonsoon xumaan oo dhan gabadh ka soo iilatay gabadh lagu tilmaamo gabdhihii cafiifaadka ee xilligii saxaabada jiray inay gabdhaheena lagu tilmaamo ayaa la rabaa walaalayaal lama rabo waan xijaabta waxba igama maqna gabdhaha muslimaadka waxay moodaan haday xijaabka xidhaan inay
diintii oo dhan bes ay dhammaystirteen laakiinna sidaa maaha walaalayaal waxaa layna ka rabaa diinteenna inaynu inagoo xijaabkeennii xidhan haddana akhlaaqiyaadkii gabadha muslimiinta laga rabay oo dhan aanu walaalayaal dhammaystirano oo aynu noqono sidaa marka aynu ugu sifowno gabdho cafiifaad oo muslimiina asbaabta xijaabka keenta al-asbaab bilxijaabi lidacfi aliimaan min ladda almar'a asbaabta ahaatay gabadha muslimadda inay xijaabka daciifiso waxaa ka ah lidacfi iimaan gabadhu hadduu iimaankeedu daciifo waxaa imaanaya dowru kabiir fi irtikaabi almacaasi inay gabadhu macaasi ku dhacdo ayaa imaanaya hadday xijaabka iimaankeedu uu daciifo oo ay xijaabkiina daciifiso sidaa la ajrigeed waxaa u daliila liqowlihi nabiyi sala allahu calayhi wasalam laa yaznaa ma sinaysto azaani qofka saaniga xiina yasnii marka uu sinaysanayo wa huwa mu'min asagoo mu'mina oo qalbigiisa iimaan yari ku jiro lagama yaabo inuu sinaysto qofkaasi sino ku dhaco ama gabadha muslimadii ay isqaawiso xijaabkeeda ay iska siibto lagama yaabo in yar oo qalbigiisa haddii uu iimaan ku jiro lagama yaabo gabadhaas inay xijaabkeeda laakiin gabadhu marka ay xijaabka siibayso iimaankii banaankeeda ama iimaankeedu daciif weeyaan iimaan weyn ma laha walaa yasraqu asaariqu qofka tuugii waxba ma xado wahuwa muuminun isagoo muumina walaa yashrabu ma cabo alkhamra khamriga xiina yashrabahaa marka uu cabayo wahuwa muuminun maxaa yeelay qofka muuminka lianna xumaanyaal oo dhan waxaa kaa reebaya iimaanka qalbigaaga degay laakiin iimaan hadduu walaalayaal qalbigeenna ku jiro in yarba ha ahaadee xumaanta asagaa kuu diidaya xumaanta asagaa kaa nihinaya marka waxaa la rabaa gabdhaha muslimaadka ah xijaabkan ay xidhan yihiin inay kan rusheegaan sidii ay aayad ilaahay ay u rumeeyeen ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi afatu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruuna bibacdin miyaad aayadaha ilaahay qaybna qaadanaysaan qaybna miyaad ka tegaysaan aayad weeyaan xijaabkani gabdhaha muslimaadka ah ee muslimka lagu dhalay ee ka awow muslimaadka waxaanu kula talinayaa naftayda iyo naftiinaba inaad ahaataan walaalayaal kuwa diinta ilaahay sida aad uga run sheegteen xijaabkana uga run sheega xijaabkana ku dheganaada waad ogtihiin gabdhaha muslimaadka anugu waxaan arkay dumarka gaalaadka ee guryaha uga shaqeeya xitaa kama xijaabtaan inay ka xijaabtaan iska daaya xitaa mara yar kama huroodaan anugu waxaan arkay macal kuwa timahoodu qaawan yihiin yaa inoo baneeyey gabdhaha gaalaadka walaalayaal waa laga xijaabanayaa jirkaagana waad ka asturanaysaa sida aad nimanka uga asturanayso xijaab weyn haddaadanba ka xidhanayn waxaa la rabaa garbasaarkaaga inaadan iska dejin walaal oo uu ku adkaysan yahay garbasaarkaaga lianna naagtan gaalada wax walba kasoo jirkaaga iyo waxay ka bixinaysaa tilmaamo allaha raxmaanka ee yidhi ha laga xijaabtana ayaa inooga cilmi badan waxa uu u yidhi ha laga xijaabto sidaa la ajligeed gabdhaha gaalaadka ah ee guryaha nooga shaqeeya walaalayaal waa in laga xijaabtaa oo jirka laga asturtaa waqtiga oo yar daraadii anugu hadalkayga waan soo gaabinayaa waxaan ku soo khatimayaa hal aayad oo kitaabka ilaahay munasalka kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa yutawafawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxsixa cani الnaari waudkhila aljanna faqad faas wama alxayaatu اdunyaa ilaa mataacu lquruur buu ilaahay yidhi walaalayaal waxaad ogaataan adduunkan hadduu khayr lahaan lahaa nebi maxamed oo khayru khalqullaahi calayhi salaatu wasalaam baa loo dayn lahaa qof kalena loo dayn maayo qof walba maalin buu leeyahay ayaan dhoweyd waxaa la yidhi nin baa dariiq socday wuxuu u socday dana uu lahaa inuu soo oofsado suu dariiqii u socday buu sarajoogii ka dhacay kadib markii lasoo toosiyeyna waa meyd adduunka oo dhan kulligeenba meyd socdaanu nahay walaalayaal ma awoodno mana ogin halkan haddaynu ka tagno guryaheeni inaynu nabad ku gelayno sidaa la ajligeed walaalayaal waxaa la rabaa inaad ilaahay intaynu ka baqno oo diinteedii islaamka ahayd ee laynagu dhalay aynu u noqono xijaabka aynu ka run sheegno aayaddan wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kasta oo ilaahay abuuray geerida way dhadhaminaysaa wainamaa yutawafawna ujuurakum ajaradiinana waa laydiin oofinayaa ama dembi gala ama xasanaad shaqaysta yowma alqiyaama maalinta yowma alqiyaamaha la gaadho faman suxsixa qofkii ku baasa imtixaankaas adduunka qofkii ku baasa cani innaari
naarta waa laga dheeraynayaa wa udkhila aljanna waxaana la gelinayaa janno faqad faaza wuuna liibaanay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo Zainab waxaanu wada dhageysanay sidii saraaxada lahayd ee uga warbixisay fadaaisha uu leeyahay xijaabka gabdho badan oo Soomaaliyeed oo iyagana barnaamijkan marti inoogu ahaa jira haddii su'aalo aad weydiinaysaan ama wax tala idinkana waqtiga waa idin siin doonaa waxaan jeclaan lahaa ijaabo marka aad fiiriso Firdawsa aan iraahdo Firdawsa Sheekh Xasan marka aad fiiriso haweenka xijaaban marka la fiiriyo xijaabkii horta ma iimaamka qofku ma iimaamku ka xijaaban yahay mise dharka korow qaadanayo way maxaa horta xijaab ah haddii maro weyn inta la qaato munaafaqad kalena la wado waxaa laga yaabaa in xataa isdhexgalka bulshada gabdhaha xijaaban iyo gabdhaha kale uusan xiriir fiican ka dhaxaynin oo ay u arkaan haddii dharka ay wadato aysan la wadanin inaysan islaam ahayn maxaa xijaabka ah ma dhihi karna horta iimaamka laftirkiisa xijaabka kow ka bilowdaa intaa maryahaba la gaarin alxamdulilah والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدي سؤال شاد هذا أنصر نقطة وسؤال مهم جواب تدنا وحن لنا علم دقود بدنا قبطة يعني حجابك ما قلبك حجاب ما كجرا ولا لدي هرتف أستاذ فاطمة أستاذ زينب وأمهد علينا يا إلهي بقى محضله ما أردت المحاضرة أي نوسو جديين سيدا أي شروط أوغا هذا الشيء إنك استوى أولي أينان صوركي ودي من يهي فضائل كسي أوغا هذا الشيء زينب وحبا أوغا ما نقناي وحان ربا سؤال شاد مركا إنا أصول نقض إلهي سبحانه وتعالى مركي ونبي آدم يحاوى وأبوري سيدا أن الله سعنو جنة أيي جوغين جيد بو إلهي يري جيد كاس هعوننا شيطان أيا وحاوى بين آدم كوحو جعلي هاي بقوت المامي وحيري الناصح بإذين أهي هذا جيد كان عنتان وحكا لني ليكم الديدين إلا بقرتني ما ولقين إنا أهاتا إيو ملكي أيضا كدي منينين geedkii waatay cuneen markay cuneen cawradooda isma arki jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala suurata acraaf buu inoogu tilmaamay aayadda 22aad rabbi subxaanahu wa tacaala falamaa daaqa ashajarat badat lahumaa saw-aatuhumaa waطafiqaa yaqsifaani calayhimaa min waraqi aljanna وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهي سبحانه وتعالى مركي أي توبت كينين ay ducadaas akhriyeen waxaa markay dhadhamiyeen horta cawradoodii is aragtay cawradooda isma arki jirin waxay aayadda hadda aan korkiina ku soo akhrinayay ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu tilmaamay caleentii jannada isku dhadhajiyeen cawradooda say ugu astulaan halkaa maxaa ka cad marka fawaa'idka aan ka qaadanayna maxay tahay aayadda waxay tahay qofka hadduu dambaawo in ilaahay subxaanahu wa tacaala dharka uu ka dhigayo markii sidaa loo soo baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhulku u soo hoobiyey aayad kale isla nafsi suurat al-acraaf ilaahay wuxuu ku yidhi yaa banii aadama laqad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariisha walibaasu taqwaa daalika khayr reer bani aadamow hooy waxaa idiin soo dejinay libaas ah cawradiina ku asturataan iyo libaasaa ku labisataan oo isku qurxisaan libaasu taqwaa libaaska taqwada ayaa daalika khayr ismi inshaaru ilaahi subxaanahu wa tacaala ku sheegay kaas ayaa ka khayr badan libaaska aa cawradiina iyo korkiina aa isku qurxinaysaan oo isku ma aragtay ku labisanaysaan
macnaha iyo su'aasha nuxurkeeda waxay tahay xamdi ay weydiisay ilaahay libaas inuu soo dejiyay libaas taqwa ah oo libaas al-iimaan ah gabdhaha hadda say korkeena ku akhrinayeen qofkii xijaaban ayaa waxaa dhici karta waxyaabihii xijaabkan horta muxuu u qaatay xijaabkii iimaankii libaas al-iimaankii cilmi ma wato xijaabka wuxuu u xirtay inuu samaabu yahay ma oga ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadii uu ku soo dejiyey oo rabbi subxaanahu wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam suurta axzaab lagu soo dejiyey waxa waye ficil amar waa ay hadda walaalo ay noo akhrinayeen macnaha lagu soo dejiyey oo dhan ayaa waxaa waaye cilmi umay qaadanin libaaska taqwada ayaa ka khayr badan libaaskaas waa libaaska ilaahay inuu ku xisaabinayo malaa'ig inay jirto naar iyo cadaab inay jiraan waxaa samayso ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن ملائكة أي قريسو حتى إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلهي سبحانه وتعالى لا بها وحي كجرو إشاد وحي خيانته إن ما عرفت إلهي سبحانه وتعالى والرقيب هاي وإلهي سبحانه وتعالى كل صعده لباسك وحاوي إيمانك أو قفك حياة إشادك هذا أي سينب كركن كل شيء حياة أكهلي سدواي مركا لبل لباس أجرت waxaan u qaybinayaa gabdhaha 5 baan u qaybinayaa 5 qaybood gabadh libaaskii xijaabkii iyo shuruudii la sheegay ee hadda gabdhuhu korkeena ku akhriyeen oo ahayd dalika adna an yu'rafna fala yu'zayn qaadatay shuruudiisi 8 shuruud ee walaalaha hadda korkeena ku akhrinaysay xijaabkii iimaankana qaadatay oo libaaskii taqwadana xiran oo ilaahay ka cabsanayso oo khiyaanada iska ilaalinayso oo ma aragtay xanti iska ilaalinayso oo xasadki iska ilaalinayso oo ma aragtay wixii ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaraan ah oo dhan ka fogaanayso oo libaaska iimaanka wadato taasi waa raqam 1 ilaahay ma naga mid yeelo gabadh waa gabadha iyada xijaabki kore iyo shuruudii naaqiska ka ah aan kaamil ahayn laakiin cilmigii iyo diintii iyo quraankii iyo duruustii intay dhigatay jecel masaajidada maraakista culumada diinta waxa way khayrka agoonta u gargaarta taas waxaan dhihi karnaa libaaski taqwada ee iimaanka iyo xisaab iyo aakhiro inay dambayso is ogna inay naaqis ka tahay xijaabkeeda kore inuu dhiman yahay xijaabkeedan kore gabadhaasna waxaan dhihi karnaa xilbaaski dalika libaaski waxay wadataa iimaaniyaday wadataa laakiin libaaski kore ka naaqis ah iyadana xagga idhig gabadh waxaa jirto libaaski xijaabka aad u xiratay oo xijaab kii ugu dambeeyay indhaha u shareeran oo galoofiska u xiran yihiin oo wax kasta u xiran wax ka reeban ayna jirin oo haddii rabto qaad ku gadayso soomayda arkin dad qaad gadaan oo xijaaban maxay toole markaa daroogadii ku gadayso waxay rabto ku sameynayso laakiin raggii iyo dhibaatadii banaanka ka asturatay la xijaabka hadhow gabadh wadaada waxa sameeysaa la dhaha gabdhii wadaadada dhib ay soo jiiday xijaabkii iyo aayadii ilaahay aflagaada u soo jiiday gabadhaasna waa ay jirtaa iyadana xagga ii dhig meeqa maraya laba ii hadhay mid waxaa jirto iyada xijaabkii korona aan xirneen xijaabkii iimaankana aan xirneen cidna aan waxba yeelin faasiqnimadeeda iyo dambigeeda iyo qaawinideeda iyada kaligeed ku eg yahay iyada dad wax ma yeelin laakiin iyada nafteeda wax yeeshay oo haligtay iyadana xagga ii dhig afar soo ma aha mid waxaa jirto libaaski koro ma wadato xijaabkii waxaan ma wadato oo way qaawanta waa caariyaad libaaski iimaanka ahaa ee hadda aayadda aan korkiina ku soo akhrinayna ma wadato oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo xisaab iyo waxay ka baqan inta kuma ekaysanine wax xijaaban ma arki karto wax quraan dhigta ma arki karto meel diin ka arfays ma arki karto waxa waaye waxay u soo idaafaysaa wax kasta oo xun hadday aragto afar gabdhood oo xijaaban oo isla socdaa waa al-shabaabkii waa al-qaacidadii waa halka meesha diinta ilaahay quraanka lagu dhigto waa waxay dhihi waa shabaab waa kan waxay dhihi waa ku shiiray oo xijaabka dhulka jiidaya wasaqda marinay taasi marka macnaheeda gabadhaasaan rabaa marka inaan fasiro marka maxay ka qabtaa diinteena ma wax kasta waa ina ula noqonaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuul alayhi salaatu wasalaam in waxaynu hadal noqonin
maxaa xukmiga ilaahay uu ka qabo qofta noocaasa maxay tahay qofta noocaasa waxaa waaye iyadii nafteedii aan xijaabkii u qaadan oo dayacday libaaska iimaanka iyo sharciga cilmina aan baran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanaynin bal inta aan ku ekaysanin iyo faasiqnimadeedii carab dherarka iyo aflagaadada dadkii mu'miniinta ahayd iyo ilaahay aayaadkiisa dhibaysa gabadhaasi waxay la mid tahay iyo dadka amhaasheedoo kale ah waxay la mid yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku soo dejiyey suurta tooba aayadda 64 الله سبحانه وتعالى waxay caayeen asxaabti calool waaweyn yihiin marka la iska hor imaadana waa fuliyal marka maxay toolay sidan weeye uu yiri munaafiqun baatay kadabta waa tu asxaabiga ku yiri ninka ku maya markii la weydiina wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudu wa nal'ab waa iska ciyaaraynay waa iska sheekaysanayay ku dhahayn marka ilaahay subxaanahu wa tacaala قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون بوده إلهي سبحانه وتعالى إلهي آيات كيسي رسولك أيا كو استهزائسان وكو جسجسسان لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مركا قبضها سي آيات داسي كو سفيسان تحي لا شك لأنه آية من آيات الله ويحجابك إلهي سبحانه وتعالى في سورة أحزاب إلهي كسو دجيه ورسولك عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين مركا آيات دي بي عيضي وحي كسي فاسنتهي منافقين تاس كسو دكتي إلهي سبحانه وتعالى آيات داس كسو دكتي مركا تاس إلهي نجنا جيو نسأل الله عفو والعافية على إلهي نجما مديه لمداس إلهي سبحانه وتعالى نشرك هذا أمضها كقبته إلى مركة ضدك مركة رسولك وحققوا سنجري قفك مركو أنت كلو وعدين جري لكن مركة آيات كسودكتو وحقوقان جري كاس عذابك إنه قصبه مركة إيمان كذي وسمي قبض حجابك عايزه لأنه آيات إلهي بي عايزي أي وحكة شيكته فردوس أجري حسنات الله كاسيو إن دمانتنا iyo intii dhageysanayso inta daawan doontan ajri xasanaad Allah ka siiyo ijaabo waxaan jeclaan lahaa wad maqlaysay bay Firdawsi iyo abaayooyin kale ee barnaamijka nagala qayb galay culimadu kaliya ma ah ragga mashaayikhda dumarkana way leeyihiin sida maantaba iyo barnaamijyo hore nagala qayb gasheenba ajri xasanaad Allah ka siiyo waxaan jeclaan lahaa marka xijaabka hadda aanu ka hadlayno gabar baa xijaab wadata isliyaan joogna hadda Nairobi roobaad ay bulaacadii way tira badan yihiin waad aragtay way sii maraysaa 10 yaardi ay wadataa ma aha inaan xijaabka wax ka sheegay markay sii marto wuu qoyay hadana meel kale ay sii martay waxa laga yaabaa say u socoto hadana masaajidka la galaysaa waxay inta badan ku andacoodaan marka aad weydiisay meeshaad maraysa wasaqayb ahayd hadii meel wasaq uu maro hadana meel daahir ah waxa jeclaan lahaa xogaa bal dadka inaad u iftiimiso xijaabkan siday horta hore walaalayaal iyo maaragta aayadihii quraanka aan ka dhex arkaynay qofka sidiisaba waxa weeye ilaahay baa xijaabkan noo soo dejiyay oo nafaray inaanu qaadano marka sidiisaba xijaabka maadaama ilaahay nafaray uu noo soo dejiyay xijaabka muxuu yahay xijaabka koow waa inaan u fahanno aayaat min aayaati illaah inuu yahay labo inuu yahay qurux saddex inuu yahay aqoonsi markaan leeyahay aqoonsi waaye qof walba markii uu meel maraayo ama loo baahan yahay ama uu socdaalayo soo lama weydiiyo aaway ID-gaagii aaway maaragtay muxuu yahay ID-gaas ama aqoonsigaas maxaa laga wadaa inaad tahay Khadiija ama Xaliimo ama Zahro iyo magacaas leedahay baa lagu aqoonsanayaa marka aqoonsiga xijaabka uu yahay waxa weeye qofka inuu u fahmo inay waxaan ay tahay diintiisii waxa laga yaabaa meel inaa maraysid sida suuqyada kaleeto qof aan rabo inaa qof baa suuqa taagana wuxuu leeyahay sida suuqyada markaan tagno sida dadkan aan la noonahay oo Kenya kaale waxaas iga gado maxay ku leeyihiin magacaaga ma yaqaanaan Khadiija ama Xaliimo kuma oran karaan waxay ku leeyihiin maama islaamu maxay ku garteen inaa islaam tahay ma wajigay ku qoran tahay waa maya waxay ku garteen maradan aawadatid marka maxaa loo baahan yahay maradan aawadatid oo adiga korkaaga ku maaragtay ku dadan iyo akhlaaqdaadii inay iswaafaqsan tahay
كو هي وحن أصلا نقنايا سؤاشي حمدي أي تري مركي آد قبله أي ليقضي الإحمريان أو آد كتير هذين مرضان وكاو سقوبيسا وصح مرضان هدي ميل قيم ومرتو ميل قلالن بي مريسا وي إسكامليان مساجد كينا مركا وإصداهرينيان مساجد كي مركا تكتينا حدي وحي آد ماركتي آد أركوضي إيا كراسانيسيد واد إسكاد قيسا سيدي باد كتو كنيسا محا صوهري waxaa midda kaloon raba inaan raaciyo waxay tahay qofka sidaas ay xamdi noo sheegtay qofka waxaa la rabaa meel kasta markuu marayo inay dharkiisa siduu isku asturay oo gurigiisa uga soo baxay inuu asturan yahay asturkaad maqlaysidna qalbiga waay ma aha dusha marka waxaan rabaa xoogaa inaan ku noqdo waxyaabaha iigu cajiibka badan oon arkaya waxaa ka mid ah xijaabkan markaa qaadatay ha u malaynin inaad ku nabadgelaysid waa lagu cayn waa lagu maagi haddii alla waa kuu roon yahay dad aan muslin ah iyo dad aan muslin ahaynba waxay u soo tafaxayteen si allaale sidii lagaaga dhigi lahaa in loo soo tafaxayto waxa ugu fudud isbitaal baad tegaysaa qof xijaabanaad tahay markaasaa waxaa lagu leeyahay dhiigaa laga qaadaya waa lagu fiirinaa waxaa lagu leeyahay oo vitamin D-ga kugu yar oo maxaa vitamin D-ga ugu yareeyey laguma dhahaayo dhiigaagaasaan ah maaragtay qofka dumarka ah maadaama hadday dhowr sano isku xigta ay dhasho vitamin D-geedii ilaan cunugan aad dhashay oo adiga aan nuujinaysid ilaan lafahaagii iyo vitaminadaadii cunaya ma lagu dhahaayo waxaa lagu leeyahay xijaabka aad wadatid ayaa wuxuu kaa hor joogaa xijaabka aad wadatid ayaa wuxuu kaa qarinayaa vitamin D-gii aad qaadan lahayd ood qoraxda ka heli lahayd marka vitamin D-gan oo la sheegayo xijaabkan horta yaa nagu farayeelo oo noo soo dejiyay allah soo nama abuurinoo soo ma ogayn inaan vitamin D u baahannahay marka allahaygiina abuuray oo ogaa inaan vitamin D u baahannahay yaa dadka ugu aqoon badan qofkiina abuuray ilaahaygiina abuuray mase dadku waxay noo sheegayaan waxaa u aqoon badan ilaahaygiina abuuray marka waxaa loo baahan yahay vitamin D-ya kaa maqan xijaabaa kaa yareeyay xabadka ma jirto wax ka jira ma jiro inay wax ka jirin aan idiin sheegayaa hadda ka hor waxaa dhacday gabar baa ilaahay amarkiis sanad walba ramadaanka ayay uuraysataa mar alla markay uurka yeelato waxaa la yidhaahdaa waxaa kugu yar maaragta irontaadaa yar maalintii dambe dhakhtarka aan markay tagaysay waa dholalkaas Yurub baan la socday waxaa la yiri ironta kugu yaree soonka iska daa waxay tiri soonkayga maxaan u daynayaa laano soonkan aniga ma wareero wadnuhu ima xanuuno laakiin dhiigaygaad ka aragteen marka daawada isiiya waan cunaya cunadeydana waan cunaya maalintii dambe 2 wiig markii laga joogay ku noqotay dhakhtaradii waxay tiri jooji ironkan aan ku sii because aad uu dhiigaagi 110 laga rabay jaawaa tagay marka yaa noo aqoon badan ilaahayna abuuray miyaa noo aqoon badan marka mase dadka waxay noo sheegayaan marka walaalayaalow ogaada xijaabkan waxaa weeye weerar adagaa lagu hayaa maxaa ka mid ah weerarkiisa qof alla qofkii wax qaldaya wuxuu xiranayaa xijaab okay xataa waxay ii sheegeen dadka suuqyada leh qofkii intuu lacag naga qaato naga daynsado hadhowta wajigiisa waa banaaya suuqa markuu soo maraa indhuhu xiranaya si aan qofkan loo garan qofkii deynka ku lahaa marka waxaan maaragtay naftayda iyo annagoo dhan isku dardaarmaynaa xijaabka sharaftiisa iyo qiimihiisa in la ilaaliyo loona ilaaliyo ilaahay dartiis intaasaan uga baxaya assalaamu calaykum walaalayaal waxaan dib ugu soo noqonay shuruudii xijaabkan dib ugu soo noqonay tilmaan yar ayaan ka bixinay annagoo isdhahayna tilmaanta war armay waxoogaa dadka baraarujisaa maaragtay calaa sabiili baraarujin ayaan u soo qaadanay shuruudii 8 ahayd oo la iska rabay midda ugu horeyso waxaan idhi xijaabki waa inuu caamimaa jirkoo idil approved islamic hijab مثلا أن يستوعب جميع البدن إلا ما استثني منه gabadhaas ayaa waxaan idhi xijaabka la approve gareeyay wakaa مثلا cabaayadaha maanta socdaan oo kaleeto oo aad loo xaxarday gabdhaha xirtaan way iska kay cafinayaan in Allah la yastahi an alhaq مثلا midka ku xigo waxa weeyaan gabadhan way wada xijaabatay oo jirkeedu waxba laga ma arko wajiga iyo labada gacmood ayaa u banaan gabadhanna ku xigto beauty and attract xijaabkeedu waa sax wuu weyn yahay waa waasic
balse ubax baa lagu xardhay oo waxaad moodaa waxoogaa aragga inuu soo jiidanayo maalan shardiga kaleeto waxa weeyaan an yakuuna fadfaadan hayra dayiq waxaa la dhahay waa inuu ahaadaa waasicusan ciriiri noqon balse gabadhan waxay la timid xijaab oo tight haddana attractive waana tight wuuna soo jiidanayaa maalan waxaa la yidhi waa inuusan u ekaanin dharka ragga gabadha tada waxay xiratay shaar iyo surwaal bal siduu ilaahay u khalqay siday noqotay baldaya midda kaleeto waa inayna u ekaanin dharka haweenka gaalada maalan oo non-muslims taana wataa lugaheeda maaragtay aloolkale la arkaayo oona qaabka daran haddii aan soo qaadano qodobka kaleeto waxa weeyaan transparent attract xijaabki waa transparent waa khafiif macnaha marada way ku taabanaysaa laakiin gudaha waxa ku jiro waa la arkayaa gurdada aad gudaha ka xiratay ama cabuurka gudaha aad ka xiratay oo xardhan oo sidaa u eg ayaa waxaa ka dul xiratay wax yar oo khafiif adigu ku dardaaraya laakiin qofka banaanka ka arkayo wuxuu ku arkaa inaadan waxbaba xiranin gabariyay muslimadda kaasna sharciga looma baahno an la yakuuna thawbu shuhra example-kan waxaan u soo qaadanay midda maartay dharka cariisada oo gaalada yahuudda ay keentay maalan gabdhaha Soomaaliyeed oo muslimaadka gabar aan taaj lagu galbadin hadee waxbaba maaragtay loomaba qabanin marka hadee saa nafta uga baxdana khatar ayay ku jirtaa nabiga kaleey salaatu wasalaam markii la dheelmiyay oo maartay Israa wal Mi'raaj wuxuu yiri waxaan arkay naaga dhar qabo oo qaqaawan ayaan arkay saxaabadii waxay yiraahdeen radiyallahu anhum war sidee bay ku dhacday in ay dhar qabaan yaa rasuulullah hadana ay qaqawnaadaan la yaabay ahayd zamankan maanta ayaa taa la iktishaafay waxa weeyaan mara khafiife oo mara moodo oo laakiin jirkaaga laga arkayo hadaad xijaab ahaan u tolatay gabar ee muslimadda cabaayooyinka baryahan socdaan xijaab may aho carab maxay khayr badan ilaa siyaadiin waan ka soo gaarnay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam ambiyadii baa yaa maartay nabi maxamed ayay ku nasab sheeganaya laakiin cabaayadaha Dubai laga keeno xijaab ma aha ilaahay aan uga noqono waayahay Maryam Shariif oo soo laaban doona iyo ijaaba wax ku kabi doonta waxaan jeclaan lahaa gabdhaha inaan jaanis siino yaa su'aal ama tala qaba aniga harta waxaan ku darsan lahaa ilaahay baa mahad iska leh maanta noo gartay inaan isugu nimaano muxaadaradan qiimaha badan oo aan uga hadlayno xijaabkeena iyo faa'iidada uu noo leeyahay ilaahay aa ku mahadsanna waafajiyay in aan soo ajiibno haddana marka kale waxaan leeyahay ilaaha ku mahadsan oo na asturay xijaabkan quruxda badan la siiyay oo gabdhaha qaar maanta aan indhaheena arkaan naga fadilay oo ama ha ahaadaan kuwa maaragtay ku istahzoodo ama ahaadaan kuwa kufaarta ah oo ilaahayba ka qadiyo ka hoojiyayba ilaahaygaasaan maanta u mahadinayaa qalbigayga sidoo ugu weyn yahay iyo farxadda maanta qalbigayga ka muuqatana mid aan xisaabi karo malaha ma bishay kariba xataa waliga inaan ku hadlo baalkan ugu talagelin laakiin farxadda iga hayso aayadaas quraanka on ka run sheegayna ilaahay hanaga dhigo kuwa ka run sheegay intaas ay u kaliftay inay istaago waxa uu jawaabayaa gabdhaha ku isdahsoodo oo caayo oo sidii walaaleen u sheegeen aayadaas quraanka istahsoodo waxaan dhihi lahaa ilaahay uga toobad keenaan وهدي خير إلهي لما أجو هاو قطوبت كان خاصة قبلها عايو قبلها مسلماتك ومحسناتك إلهي وحودا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مركب وحندها قبلها حجابا قبلها مريها وين سيها بالإيدة وحس ولا في عينه واحد عينه وكتاب كاجي واحد عينه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام واحد عينه وآيات قرآن waxaan dhihi lahaa aad ilaahay uga cabso bal kufri inaad ku dhacdaaba macquul ah intaad leedahay wax sheeg waxa laga yaabaa inay hoobato diintaadii oo dhanba ood ka dhex baxdo marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaalida ah waxaan qabaa maanta gabar xijaaban oo dunida guurteeda saaran gabdhaha ugu xijaab qurxanaanaha anaga alxamdulillah ilaahay ku mahadsan waa anaga sidaa qabno dhul badan maana marin laakiin anaga is og anaga Soomaali hadaan nahay ilaahay aa mahad iska leh gaalnimo sooma marin seefkuma islaamin caqiidadan waxaan ku qaadanay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay aa noo gartay inaan islaam noqono oo kulligeena wadankeena 100% islaam naga dhigay saas darteeda inaan maanta kitaabkeena dhulka dhigno
ama maanta qof gabar Soomaaliyeed ay ku istahzooto ay wax ka sheegto ay aayadii Ilaahay ku jaajeeso wallaahi aada uga xumaay gabartaas waxaan dhihi lahaa haddii Ilaahay naxariis la maagay ha ka toobad keento dadda Ilaahay naxariis la maagin kafa Ilaahay naxariis la maagin waxba buu ma sheegi kari ani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كهذا لكن بفضلكن أريد أن أتكلم باللغة العربية لأن هذه الحجاب حجاب جيد ولكن رسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم حجابا كثيرا ولكن بعض الناس لا يلبسون حجابهم لأن هذه الحجاب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنتم تريدون أن تلبسون حجابكم لا تكونوا عاريات كاسيات بعض الناس كم بنات يلبسون حجاب عاريات كاسيات كم بنات يلبسون حجاب عاريات كاسيات إذا أنا وأنصحكن أنتم تلبسون حجابا الذي فرضه الله عليه لأن هذه الحجاب كان حجاب جيد ولكن الناس يلبسون حجاب ويلبسون شفاهن الذي لا يرضى عليه الله كم بنات أنا رأيت يضعون وجههن يتغيرون وجههن كم بنات لكن هذه الوجه لا تغير وجهك لأن وجهك وجه الله الذي خلقك الله الذي خلقك وجهك الله الذي خلقك جسدك لا تغير جسدك أي لا تغير وجهك لأن هذه البنات بعض الناس أنتن رأيتن فيه بنت تلبست حجاب ولكنها فيه داخلها رأيتها إذا أنت تريد أن تلبس حجابك فيه الشيخ تعرفون أنتم في بقرصان قال إذا هي بنت تريد أن تلبس في البيت هي فيه عندها الملابس ليس نظيفا إذا تريد أن تذهب عروسة كيف تلبس وأنتم تعرفون كيف تلبس هي تلبس تأخذ عباية وخمارها وهي في داخلها فيه عيب وأنت سترى في داخله شيئا لأن هذه ليس جيدا وأنتن فيه بنات كثيرات أنا رأيت في وجهه أو في عيني فيه بنات كثير تلبس في الملابس الذي رأيت في داخله وأنا أشكر المعلمات الذي كنت داعيا للناس وأنا أشكر أمهاتي وبناتي شكرا لكم والسلام عليكم وكم هاتسين ولا لها حجاب كأد أو جهد لي الحمد لله إلهي ما شان اسكو كان ما أنت أنكو حسين حجاب كنا وحاربي إنا نقدر صدى وحير قبل كهد لي قبلها مسلمات كأه إيمان أنت آقرو سألوني قالوا كيف ما هذا الثبات وحولنا سألوني قالوا كيف ما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراسيات أوليس نبلي في زمان الشهوات أليس نفسك تشتهي في هذه الحياة فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائذ ناقصات لما اشتهيتم مثلكم لكن أهدافي ستبغى خالدات أريد قصرا لا يهدده زوال أريد عيشا ليس يقضعه ممات وأريد أنهار بقصري جاريات فعقولنا إن لم تبلغنا الجنان فحياتنا ليست حياة بل ممات
فأمامنا خبر تشيب له العقول وظلامه تخاف منه الظلمات، وأما بعده فنشر وحشر وحساب، وسوف يخبر من أتى بالسيئات، وسوف يسأل ربنا عن العطاء، وسائل عن عيون مبصرات، وبتت عيون تصلي لمجيب الدعوات، فتلك همتها جنان الخالدات، وتلك همتها زخرفة العبات. ما شاء الله aad ay u mahadsan yihiin gabdhaha iyagana sidoo kale barnaamijka martida inoogu ahaa ee waqtigooda inoo soo siiyay barnaamijkeena sidaan hore iskula soconayba waxaanu kaga hadlaynay xijaabka waxaan jeclaan lahaa Maryan Shariif Maryan marka aanu ka hadlayno xijaabka ama asturnaanta dumarka dadka islaamka dadka Soomaalida 100% waa dad islaam ah diinta shalay iyo maanta lama baran waxa laga yaabaa wixii ka horeeyay 20 kan sano ama xilligii ay xukuumadda jirtay ardada iskoolka wiilal iyo gabdho baa isla gali jiray surwaal la qaadanayay dadku islaami ahaayeen garbasaar iyo duruuca la qaadan jiro dhaqanka Soomaalida ahaa ma xilligaas diinta dadku aysan fahmin oo waxa yara fahamka diinta islaamka ee bulshada xilligaas mise waa in kastoo dadka qaarkood ay tilmaamaan markii dhaqanka laga fiiriyo in dhaqan carbeed uu yahay dharkan oo asturnaanta ka soo wax carab laga soo minguriyo ay tahay ma dadka hadda fahmay diinta islaamka oo waxa yara markii hore fahamka islaamka waa mahadsantahay xamdi سؤال وسؤال معناها ولو باهي ورت قبل كل شيء إلها مهدله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أختي مسلمة ورت ولاشن سؤال شيء إسلامكم معناها بالله وما إهين وقت سروالك إيه معناها لقاعدين شيء يشاركه وليش قبلها معناها يقول كوذي شيرين سكولك أنا جوا كوتشرني هاي الشيء لكن دينت فهم كذا بعد لمنا وذكر وعي كليو ذكر برو ومعناه إنه ويلك مسلم كأي قبل مسلمات دعا إن حجاب ليهين وإلهي سبحانه وتعالى دينتين معناه أو معناه أو نوجس وصاري معناه وحدة كم قنين معناها قبل سيقول لبسن هاد ويلك سيقول لبسن لها علماء ذا وحى معناها مركز كلي أو كلمنا ذكر إن أو معناها منهج الإسلام هو تلقى لقبل مسلمات دعا ويجا يكل بسنيسو يويلك ويجا يكل بسنايو واي منهج كامل وي دين الإسلام كا تا معناها معها دين إني معناها هدير بلابتي معها معناها نبي محمد وقت يسي بلابتي دينته تا أيان لي هاي متنك لبرنامجك وحن كجهلين حجابك ما دام أنا قبله مسلمات كورت أولا وحاجرته إن معناها ما أنت معناها بروجرام كأنه أو حجاب كموضوع أو معناها وحن أجنهي إلهي سبحانه وتعالى ونيري معناها ونوشج آيات إلهي سبحانه وتعالى غفك مسلم غفك مؤمن كأهونين يقبل مؤمنات دورش أي سكنان أي إسكت دور نيسو مركي هش آيات إلهي كسود دجين كبعدي ونبي محمد التفسيري معناها وح أي آيات دورن كرتمتشلو ها ما يكون لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمره ورسوله أن يكون لهم الخيرة ما إيسن أسقنان إن يدورشوا ما دام إلهي أمري معناها ودينتي وكلا دقي معناها إن آيات واحد دورة تماهن مع إن سمعا وطاعا إن اتراها هواي تنحيكته ولا ليالو وحاج ما دام بروجرام كان حجاب كي هي waxaa jirta sanooyinkan dambe macnaha in oo weerar lagu hayo aayaadka ilaahay in lagu hayo weerar aayaadka markaan le ilaahay subxaanahu wa tacaala waa badan yihiin nebi maxamed aayo weeyaan weerar lagu qaado waa ogtahay ina bombal iyo balaayo la sameeyey aayad weeye aayaddan macnaha oo xijaabka oo gabdhaha la sheegayo oo beeniyeen oo macnaha ilaahay iyo rasuulkiisana ka furteen waayo diinta dib ugu noqda qofka ku istihzaado aaya min aayaati illaahi macnaha totally macnaha gaalnimay gelaysaa walciyaadu billaah marka aayaadka waayahan dambe sanooyinkan dambe waa lagu jeesjeesayaa aayaadka ilaahay waxaa jirta marka in hujuum lagu haayo xijaabka weerar in lagu haayo xijaabka oo aayad ilaahay ah oo gabdhaha sheegeen oo kitaabkeena ay noogu taalo wuxuu macnaha waxay leeyihiin weerarkaas in muddo oo socday sanooyinkan dambe dhan wuu socday khaasatan casrigan aan joogno bilaagiisa ilaa hadeerta macnaha iyo wixii ku horeeyayba cusurti dambe weerar lagu haayay xijaabka
xijaabka weeraraa lagu hayo waxay belief garaysan yihiin dadka oo weerarka ku hayay inuu dib u dhac iyo macnaha khalf iyo rajciya inuu leeyahay dib u dhac iyo macnaha gadaal u naqash inuu yahay ay ku sifeeyeen waxay yiraahdeen macnaha waxaa macnaha xijaabka macnaha gabadha macnaha muslimadda gabadha macnaha oo gabadha macnaha waa mid macnaha lagu qarinayo oo lagu sijni xabsi lagu gelinayo saasay yiraahdeen maadaama oo casrigeena uu yahay yiraahdeen nimanka dadkii oo saas macnaha xijaabka u durayay waxay yiraahdeen casrigeena casri oo fadaa'iya teknolojiya cilmiya اتصالات macnaha casri ku socdo waa taqadum marka gabadha waxaa loo baahan yahay yiraahdeen inay ragga kala qayb gasho ee arintaas horumarkaas socdo oo cilmiyeysan oo teknolojiga ku socdo inay kala qayb gasho dadkii marka oo hujuumka ku hayay xijaabka way kala qaybsameen waxay u kala qaybsameen marka qaar waxay yiraahdeen totally horta way inkireen ayaga xijaabka way inkireen waxay yiraahdeen dadkii hore bis cusuurtii hore oo islaamiga ahayd oo ugu horreysay bisle ayaga macnaha xijaabka u khaas ku ahaa yiraahdeen qayb kale jirta haddana macnaha waxay yiraahdeen in macnaha oo lees astro wajiga la daboosho waxaasni waxa taqaaliid waaye translation waaye oo laga soo gaaray yireen dadkii hore leh waxaas ma jiraan kitaabkan kuma taal sunnada nabigana kuma jirtay dheheen macnaha qaybta kale oo saddexaad waxay yiraahdeen xijaabku waaba sijni oo gabadha la geliyay waa macnaha xabsi weeye prison oo la geliyay waaye gabadha waa yiraahdeen oo xurta ah marka waxaana waajib ah in sijnigaas xabsigaas aan ka soo saarno xijaabka waa xabsi yiraahdeen xabsigaas marka waxa waajib inaan ka soo saarno si ay macnaha tartan uga gashay ragga ay macnaha awoodeeda macnaha inay muujiso oo macnaha dhan kastaba ay ku dhex jirtay ikhtilaaf ku sameeyay raggi tartanka iyo orodka iyo meel walba inay la gasho ay macnaha la qasato saas aan wanaagsan xabsigaas waa in laga saaraa saasay yiraahdeen hadda isku daaro saddexaas fikrad iyo wax ka sii daran hadii aan isku daro ay dadka xijaabka weerarka ku ay yiraahdeen kulligood waxay wadaageen macnaha horta baadi ay wadaageen inay dad uminayaan ay diinta dadka leexinayaan ay wadaageen kulligood waxay wadaageen inay kitaabka ilaahay aayaadka ku yaala inay beeniyeen saasay wadaageen marka nin shaacir wuxuu yiri fa in kunta tadri uu yiri hadii aad tahay mid garanaya hadii aad tahay macnaha fa innahu macsiyah waxaasna had soo sheegnay macsi weeye وإن كنت لا تدري هدي أنا نقرنينين فالمصيبة أعظم معناها مصيبة وين وايرة أنت أو حكي وين أنا تشيرين مركا هذا أمه الرئيسو حجابك معناها إن لا درو إن معناها وين رقصوق على هذا أمه الرئيسو إن مركا لقى هذا إن حجابك أما أسترونانت يسلاني ماذا لقى هذا واحد مدة حوجا إن تدك أي مركبة مسكحة سوق ليسو إن شباب ماشي وسكمرنين mar hadii la arko shan qof lix qof oo xijaaban oo dhar wato in la yiraahdo kuwan ama shabaab yihiin cabsi dadkii bulshadii la noolaa Nairobi hadda joognaa waa wadan kale Soomaaliya ma ahan marka maxay tahay xiriirka ka dhaxayn kara shabaabka iyo xijaabka asturnaanta dumarka waa mahadsantahay xamdi horta xijaabka ilaahay subxaanahu wa ta'ala dib uga ma noqonayno maanta dhan wixii laga soo sheekeynay wuxuu soo degay 1435 sano ka hor xijaabka soo degay alqaacidana ma goorma ahayd ha cabsanina sheega goorma ahayd alqaacida 2001 ahayd samaha al-shabaab goormuu oo bilowday aragnay 2007 waayahay marka 1435 sano xijaabka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo dejiyay iyo 2001 iyo 2006 daacishna goorma waayadan waxaa waaye shaydaankii xaawi aadan geedka cunsiiyay oo dharka ka dhigay dadka bini aadankana waxa ugu dambi badan in dadka dharka laga dhigo macnaha loo wada waxaa waaye dadkan gabdhahaas asturan oo cafiifaadka ah oo ma aragtay eediska iyo ummadda iyo nabadgelyada ma aragtay sameeyay oo raggii in ma aragtay nabadgelyo waay am nooc rabana ahaadaan muslimiin oo غير muslimiin ahaadaan waa ka nabadgaleen shaydaankii ku dhex jira marka dadkan wuxuu dhahayaa marka al-shabaab waaye al-qaacida waaye al-qaacida al-shabaab iyo al-qaacida waa ururo siyaasi ah oo waqtiga la sameeyay la og yahay
ilaahay subxaana wa tacaala aayadiisa iyo gabdhaha muslimaadka xijaabkoodana dadka ku sifeynaya waa shayaatiin al-insi aan dhihi karnaa firdowso dadka qaar waxaa la yidhaha fulay xanti ma mooga waxaad sheegtay xijaabka horta waa asturnaan qofka islaamka ah waxa ugu horeeya oo lagu garanayo waa inuu asturan yahay waxaa la yidhahdaa xoogaa dhaqaale carabta ka helaan gabdhahan xijaaban dadka waa ka burbuuran yihiin waa ka qurxoon yihiin nimankooda iyaga laftirkooda surweelada u gaaban waa wadaado kale mashruucaas ay cunaan ay dharkan u samaysteen runtii gabdhaha waxay uga qurux badan yihiin way ka qurux badan yihiin way ka sharaf badan yihiin way ka cizaysan yihiin laana ilaahay baa subxaana wa tacaala dhahay daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn haddaa maanta dhan sheegno daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn ilaa waagi wuu noogu bari karaa macnaheeda laakiin inay cafiifaad yihiin oo qurux badan yihiin oo buurbuuran yihiin oo sharaf leeyihiin ilaahay sheegay aayadiisana waa taas daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn ilaahay subxaana wa tacaala intaasaa nagaga filan qowlka ilaahay baa nagaga filan marka sidaas waaye saa darteeda waxaa waaye dadkii markuu arko qofka ka sarreeya semberi waxaa waaye waa inuu caayaa waa inuu wax ka sheegaa waa dabeecada bashar waay taas in loo raadiyo wiilasha jaadkii markuu kan ilkiisii rideen oo maaragtay khamridii suugdeerada ugu dhacaya geesaha ay ka waxeesmeen oo ilmihiisii isaga iyo naagtiisa kala fiigeen markuu arko wiil qurux badan oo wejigiisa nadiif oo reerkiisa biilanayo oo ar-rijaalu qawaamuuna cala nisaa oo qawaam waa inuu dhaha khamiiskaa gaaban oo garkaa dheer oo intaas uga dhigaa waxaasna waxba ma aha waxaan ku kabayaa walaashay xijaabka markaan u soo macnaha carab baa wax looga raadsanay iyo dadka macnaha waxaa waayay horta xikmad ma isweydiinay xikmadda xijaabku ilaahay u soo dejiyey xikmaddu ilaahay u soo dejiyey example haddaan soo qaato maalan idinkana aan idin weydiiyo su-aashaas maalan cabuurka aad ugu jeceshahay ama garbasaarka aad ugu jeceshahay haddii intaad dhaqdid la laabtid sanduuqa meesha hoose shandada meesha hoose aad gelisid 3 usbuuc ama hal bil aadan xiranin maalinka la soo baxdo suu kula noqonaya cuseeb soo ma aha gabadha asturan oo dedan waxay la dedan tahay macno weyn oo qurux oo ilaahay ugu talagalay haddii quruxda la bandhigo oo aragga ka badato wax macno ay yeelanayso ma jirto waxaase walaalayaal waan idin sheegayaa xijaabka shaydaanka sida abaayo ay noo sheegtay firdows shaydaanka ayaa u kaalmeynaya oo wuxuu samaynayaa gabdhihii shayaadiinta ahaa ayaa wuxuu leeyahay sifa aad ma aragtay edab darada u soo samaysaan xijaabka qaata oo isku qariya wixii xunba xaawaa leh ma maqli jirteen aan ku sabarno libaaskaas oo libaasu taqwa oo ma aragtay gabdhaha naga noo sheegeen muslimaadka iyo culimadaba ay noo sheegtay aan ku sabarno kulama uu culeys yahay kulama oo ma aragtay qaar baa wuxuu kula dhagaxad beesha iska fur ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayga ii khalqay oo ii abuuray oo dhagaha ii bixiyey maqalka ii bixiyey soo samiicul basiir ma soo ima arko soo calaamul ghuyuub ma soo ima arko gabdhayo muslimaadka ah oo sharafta lah waxaa la doonayaa inaan diinteena u istaagno oon difaacano oo xikmad aan ku difaacano wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana xikmad iyo mawcido wanaagsan ayaa la doonayaa inaan ku doodno bilatihi hiya axsan ayaa la doonayaa inaanan xanaaqin oo ma aragtay si xikmad aad xanaaqdo ama aad ciilooto waxba cadkaaga ma goosan kartid in si degan oo tartiib waxaa la doonayaa inaan gabdhihii wax barno gabdhihii inay ma aragtay diinta la baro gabdhihii inay la baro maxay ahayd luqaadkii la baro si ay cadowgooda diinta wixii cadow ku ay iskaga dhiciyaan oo cadkooda u goostaan ijaaba waxaad hore u sheegtay hadalkiina waxaa ku jira in inta badan gabdhaha guryaha ka shaqeeyo aan laga dadan oo markaas ay u arkaan qof dumar oo qof dumar la joogto waxaan jeclaan lahaa diinta islaamku laba qof oo haween sidee cawro isugu noqdeen marar badan waxaa arnaa saalumada la tago gabdha ajnabiga iska leh ama Ethiopian haadan ama Kenyan haadan madaxa laga samaysto inaad meeshaas iftiimisaan qof dumar ah dadku waxay ka xijaabtaan qof raga markay arkaan see dumar kala cawro ugu noqday qofta dumara oo guriga ka shaqaynaysa in laga xijaabto
maxaa loo diidayaa waxaa loo diidayaa qoftaan iyo adiga dumar kasta ha ahaato laakiin labadiina laba diinood baad kala wadataan waxaa laga yaabaa qoftaan inay hadhowto adiga markay gurigii aad joogtid ilaan banaanka markaa maraysid waa xijaaban tahay laakiin gurigaagii markaa joogtid oo timahaagii ay maaragtay aysan ku astano qayortaadii aad dirac iska qabtid inay tiraahdo berito intuu qof weydiiyo alla maasha allah way qurux badan tahay timaheeda waa saas qoorteeda waa saas ay kaaga sheekayso ayada marka ceebba umaba aragtaba laakiin inaad qurux badan tahay rabtaa inay sheegto taas aan ka soo tagno saaluunadoo kaleeto sideedaba caam ahaan dumarka maaragtay way bannaan tahay laakiin haddana waxaa weeye in baa la yiri oo in dumarkii laga maaragtay laga dato okay saaluunadoo kale aan usoo noqono timihii qofkii waxaa laga yaabaa inuu saaluun tago saaluunkaas uu tagaayo ay joogto gabar aan maaragtay muslin ahayn ay timihii samaynayso gabdhihii saaluunka lahaa inay yihiin gabdho soomaaliyeed oo muslimiina ay yihiin warheedha maxay tahay gabadhaanayta dadka dhex taagan oo samaynay sida cilaanka oo kale gabdho soomaaliya mariyaan laakiin timihii markii la gaaro gabdhahaanaa nooga fiican oo naga xoog badan adiga naftaada gabadhan leh saaluunka soo ma rabtid waxa ilaahay irsaaqada uu ku siiyey inaad ileen naftaadii baad cunaysaa oo ilmahaad ku korsanaysaa inaad irsaaqad xalaal shaqaysatid soo ma rabtid oo kasabkaaga uu kasab xalaal noqdo marka waxa loo baahan yahay wax diinta waafaqsan inaad samaysid adigu samee ilaahay maqraj buu kuu furayaayo oo waman yattaqillaaha yajcal lahu maqraja qof buu kuu keenayaa timaha kuu sameeya Soomaaliya ama muslina noocu qofku inuu muslim yahay shardigi ah maxaa kaleeto saaluunkii ay gabdhihii tagayaan iyagoo xijaaban saaluunka albaabka waxa laga yaabaa maro yar oo khafiif inay ku xiran tahay maradaas waxa laga yaabaa qofkii soo galay iyo kuwa sii galay maxaa kaaga daran nimana intaas alaab wareejinay waxaas ma rabtaa albaabkay soo istaagayaan marka waxaa loo baahan yahay gabadha meesha joogtana inay is asturto ay tiraahdo markay meesha gasho albaabkan wax fiican nooga xir oo anaga aan cawradeeni aan maaragtay banaankii laga arkayn haye gabadhii meesha lahayd nafteedana inay ka dadaasho dadkan u yimid amaanay ku yihiin sama qofkii gurigaaga yimaad amaanu kugu yahay qofkii meesha ka shaqaysid oo maaragtay kasabka xalaasha ka heshid kugu yimaad amaanu kugu yahay intuu gurigaaga joogo sharaftiisa cirdigiisa ina ilaalisid ka soo tag waxa arkaysaa gabdho qimaaro qaba maasha Allah ama xijaaban waxayba tagaanba meel Etoobiyaan ay leeyihiin oo timaha lagu sameeynaaba sameeyabo waa jiraanin marka aroosyada kale gabadhii markay aroos tahay maanta macna ma lahano he maanta maalinteeda waayo odagaa loo qurxina odagaas inay gaarin soo ma dhici karto ayadoo macsida ku jirta ay dhaxdii ay gabadhii ay tii rabbi ugu timaado waxa dhacday hadda ka hor qiso waxa jirtay gabar in burukiyeer la geeyay wadaad ahayd oo arooskeedii markii arooskii la geeyay waa aragtiin gabdhaha habeenkii bacdal maqrib la galbiyaa maqribkii salaadii maqrib baa gashay gabadhii makeup-kii loo mariyay timihii la balbalaayay waxa la yiri gabadhii marka waxay ilowday inay sii weysa qaadato maqribkii baa galay markuu maqribkii galay bay waxay tiri waxaan rabaa inaan tukado soo weysaysto laa ilaaha illa allah muhammad rasuul ma makeup-kan maanta dhan ku dhabar jabaynay oo lacagta ku bixinaa rabtaa inay dhaqtiyaa waa ku bariyaa maanta cishihii maqribkii isku dar ma la isku dari karaa maya salaad walba waqtigeeda in la tukado ilaa qofka inuu safar yahay ma ahinay marka gabadhii waxay tiri war fiican ma idin sheegaa dadkii oo dhan qaraabadii waa iska taqaanaa waa la isugu tagay mayay tiri anigu waxay tiri salaad joogta ma qalaynayay tiri way baxday way soo weysatay salaadeedii bay tukatay salaadii markay maqribkii tukatay gabadhii dadkii dhan qaracan hadda waa makeup-ka waa la islaak waa ku bariyaa gabadhii oo saloonka leed waa ku bariyaa xogaa yar oo iska maaragtay formality iska ugu celi lacag keenay tiri tiina waa bixinaynaa waxay rabtaa ahaatee laakiin sidii hore qurux uma noqonaa adi bal sheekadaas ka waran awalba waa la mariyay haddana soo lama marin karo qofkii gacantii sooma laha alaabadii sooma taalo fiir shaydaanka meesha u soo galay war yaa idinku daalinin waxaa dhacday gabadhii intii mar alla markii wixii loo marmariyay gurigeedii intaan la geerin accident inay gasho ku dhimatay marka mar walbo wax markaad samaynaysid waa inaad ku dadaashaa ilaahay muxuu kugu jeclaanayaa oo raalli ka yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabadha aan xijaabka qaadan ee banaanka joogta markay rabto maanta barnaamijkan inta aragtay inay ku soo biirto gabdhaheenan hadda nala jooga qaarkiin waa xijaabantiin wajigu waa bannaan yahay gabdha indho shareer ay ku darsadeen
kuwa idin ka mid a gacmihii ay sii dabooleen gloves ay ku dareen cilmi dhagoodka waxaan maqli jirnay wejiga iyo labada gacmood waa caadi korka kale in la astiro marka waxaan jeclaan lahaa xoogaa madiiniyana mise nin walba wax uu ku darsaday waay hadda waxaan u malaynaa xamdiya su-aashaas inaan dib ugu noqono inayna ahayn maanta dhan hadda wixii korkeena lagu akhrinayay ahayd laannahu maxaa la yidhi yacni quruxdeeda yayna muujinin gabadhii ilaa libucuulatihinna aw aabaa'ihinna aayadda ilaa aakhiraha marka aayadda maxaa ninkeeda inay u muujiso hadda farayga cilaana ii saaran ani kaatinu waa iigu jira marka waxaa waaye waxaana duubaysaan kaameradii aad duubaysaan marka farayga in lagu mashquulo oo anigii wax sheegayay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun aan noqdo aad darteed horta u laabtay aan u xirtay cilaanka u xirtay gabdhahan kale cilaan ma u saarneen marka saa darteed way u waxis marka labada gacmood calacalaha iyo wejigaba way bannaan tahay way bannaan tahay gabadhi indha shareerkana waxaa waaye qofka waa sunno qofka haddii uu wejigeeda in lagu fitmoobo ani hadda waan qaadan jiray 25 sano waa xirnaa indha shareerka dhakhtar iga dhigay oo waliba aad iiga dhigay markii la iqalaa la iga dhigay marka saa darteed waxyaabo daruuri aad baan u jeclay xijaabkan kore indha shareerkan ka jeclaa ani maxaa yeelay laakiin waa sunne sidii abaayo u sheegtay waaye wixii aan ka jawaabi lahayn ayadaa ka jawaabtay aniga waxaan ku darsanayaa maalan horta programka sidaad arkaysaan program nidaamsan waaye ujeedadeennana waxay ahayd inay qaarna gacmaha xirtaan qaarna maxay aheeto ay gacmaha fiitaan qaarna wejiga ay fiitaan qaarna ay wejiga xirtaan su-aasha inay timaado ayaaban sugayne ma garanaysaa jawaabteedana waxa waaye gabdhaha oo maasha allah kuwa daawani doonaan barnaamijka iyo kuwa hor fadhiyaan qofkay ku qaloocan tahay su-aal intaa hadda aad arkaysid ha ka dhex bixin gabarya muslimadda khayr ilaah ku sii aniga hadda wejigayga waa faydan yahay laakiin waxaan aaminsanahay gabadha indhaha shareeran inay iga fiican tahay bismillaah anigana wejigaygu waa xijaaban yahay laakiin waxaan aaminsanahay gabadha wejiga faydan iyo gabadha wejiga xijaabatayba camalkeeda inay ilaahay loo hortagayso ay isku mid yihiin الله سبحانه وتعالى وحي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ساس درتد كل تفسير كذا وكسيسان وجهي مركان لنا هاي أنا هاد وجهي أستورين هاي إلهي سبحانه وتعالى وحيري وليضربن بخمرهن على جيوبهن آيات قبر كستا ماشي فردو تفسير كذا شيوخ ذا أولتك وجهي هلا دبولوه خمور وحو كحسن حي ابن عثيمين شيخ اللي يراهدو إلهي هبركيه وحو كشر حي خمار إني يراه وحلو لو دبولي قبل كو دبولي سمد هذا كبلابته إلا قربه هذا ورعسن هدنا إنه رعسن ويري إني كو دبوشو دليل وحو أحمركه آياداس والدليل هرتو صبار آياداس وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث أو ابن عمر أو رسولك عليه الصلاة والسلام أو كورينا وحويري لا تنتقب المرأة المحرمة معناها من نقامنا يسو نقاب وكان من نقامنا يسو قبل معناها مسلمة دقة مركي محرم كتها معناها حجك معناها مركي حجين يسو وتشيغن من نقامنا يسو لكن مركك لوين نقامنا يسا ولا ليالو جزاكم الله خيرا هلا بارو وليضربن بخمرهن على جيوبهن waxaan isla garanay faa'iidada xijaabka uu leeyahay iyo diinta islaamka sida uga hadashay gabdho badan ah xijaaban oo islaam ah haddana laga yaabo dharka inay tushaan laakiin diiniyan aan haddana baran gabdho kale sidoo kaleeto jeclaan lahaa inay xijaabkii qaataan maxaa xiriir ahna kama dhexeeya labadii gabdhood in sidee labada gabdhihii la isugu xiri karaa sidee loo xoojin karaa in xijaabka dadka islaamka oo dhan ay say u fahmeen loo wada qaato gabdhaha Soomaaliyeedna ay u noqoto mid lagu baraarujiyo maxaa tala ah oo dumarka aad siin lahaydeen talada la siinayo waxay tahay si ay labadaas gabdhood iskugu xirmaan adiga xijaabka qaadatay adiga ma dooranay ilaahay baa ku siiyay waxaa loo baahan yahay gabadha kaleeto oo rabta diinteeda inay barato inaa gacmaha loo fudiyo oo la soo dhaweeyo oo la yiraahdo anigaba waxa laga yaabaa inagaba inaasaan ahaan jirnay ilaahay baa fadligaas iyo dheeraadkaasna siiyay in waxa wanaagsan la isugu yeero la yiraahdo ka soo qaybgal imow baro maaragtay khayrkaanayta waa wanaagsan yahay in loo dhimriyo in la soo dhaweeyo in maaragtay dadka kaleeto sidaan loo soo dhaweeyo
waxaa lagu ma aragtay gabadhaha xijaabka xirtay koow iyaga waxaa laga rabaa horta cilmiga iyo dacwada inay bartaan laana asxaabtii rasuulka sal alayhi wasallam waxay ahaayeen ma ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah buu dhihi jiray qoomkaygiyaan u geynaa laana iyaga ku dhaqmay dadka qowl waxba kuma qaataan laakiin ficilka iyo acmaasha ah gabadha xijaaban ay sameynayso dadku diintay soo gal haday iyadii ay noqoto qof ma aragtay diinti ka run sheegaysa inama yakhsha allah min cibaadihi ulama ma rag kaliya tahay mase rag iyo dumarka waay su'aashaas idinka idin dhex taala marka inama yakhsha allah min cibaadihi ulama waa horta rag iyo dumarba waa inay gabadhu noqotaa waxay ilaahay ka cabsanaysaa markay cilmi yeelato ilaahay aayad kale wuxuu ku dhahay shahida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaa'ikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist isku cadfay malaa'igtiisu ku cadfay maxay ku gaareen darajadaas ulul ilm qofku waa inuu cilmi yeeshaa maxaa wax ku kala saari kartaa waxa qaldan iyo waxa saxsan xijaabka marka waxa way sida hadda ayaa noo sheegtay abaay Faaduma waxa way qofka du xijaabka dhaqana loo qaatay iska tuko salaada hada dhaqan u qaadatay salaadaada ansax ma noqonaysaa waxa way sida aniga iiga aragteen u tukada soomo dhiin rasuulka kaleey salaatu wasalaam marka waxa la rabaa sidii rasuulka kaleey salaatu wasalaam looga arkay in salaadii loo tukado wixii uu sameeyay acmaashi xajka sidii in loo sameeyo aniga aan hoos ugu soo laabto cilmi baa laga rabaa gabdhaha xijaaban inay cilmiga si fiican u bartaan cilmiga markay bartaanna afar shay la rabaa qofka inuu rumeeyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu barto labo inuu ku dhaqmo saddex inuu ummadda u gudbiyo dhibaatada iyo waxa ka soo gaarana inuu ku sabro markaas waxa la rabaa dadkii afwaajan ay noogu soo galayaan laakiin hadaaba adigi waxba ka kasaynin oo hadii lagu weydiiyo suurta faataha macnaheeda aadan kasaynin maxaa horta dad u soo jiiday kan waa kaafir kan waa muslim waxaasad kala waxeenaysaa aniga waxaan ka qabsanayaa dhanka gabadha jecel inay xijaabka qaadato oonan xijaabkana qaadanin maalan xiriirka ka dhaxeeyo ayada iyo midda muxajabada sida abaayaal u sheegeen midda muxajabada waajibkeeda waxa waaye inay ugu yeerto oo maartay xilba ka saaran kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati waxa weeyaan raaciyadaas iyo ummadda ay mas'uul ka tahay gabadha mutacallimada waa inay gabadha غير mutacallimada inay wax u sheegtaa midda aan cilmiga kale مثلا qabto oo xagga diiniyada aan cilmi saas aan u lahayn waxaan ka codsanayaa inayna ma aragtay ayna give up gareynin oo ma aragtay ay ku mantado ma sha Allah niyada wanaagsan ay la timaaday maadaama ay haweysatay inay xijaabka xirato waxa laga doonayaa inay gabdhaha muxajabaadka ay raadsato oo connection ay la sameeyso si ay ayagoo kale ay u noqoto kuwa kalena ay ugu yeerto wabillahi tawfiiq ana waxaan leeyahay horta gabdhaha muxajabaadka ee cilmiga bartay laba shuruudood ayaa laga rabaa shuruuda koowaad waxay tahay inay gabadhu marka hore al-ikhlaas ay waxay baranayso ikhlaas ilaahi dartii ay ka tahay midda labaadna waa inay tahay mataabacatu rasuulkeeni salawaatullaahi wasalaamu calayhi inay kaga dayanayso waxa ficilkan ay sameynayso oo isagu sameeyay midda saddexaad waxa weeyaan inay gabadhan wixii ay baratay ilaahay dartii ay u baratay ay gudbiso gabadha cilmiga dalbaysana waxaan leenahay oo ayadu rabtay inay hadda xijaabka qaadatana inaanay gabdhaha walaalaheed ee muslimaadka muxajabaadka cilmiga bartay aanay yasin ay cilmiga ka qaadato liana gabdhuhu waxay jecel yihiin inay ragga wax ka bartaan sida la ajligeed adigoo helaya gabadh muslimada oo walaashaada oo cilmigii ku taqaana wax badan oo ninka laga xishoonayana aad u sheegi kartid waxaan ku dhiilaa walaashayda muslimada ah gabadha muslimada ee walaashaya cilmiga ka qaado anu kulay waxaan ku darsan lahaa gabadha muxjabada oo xijaabka haysato inay macnaha ay daa'imto xijaabkeeda ehelkeeda iyo dadka ugu dhow aqribadeeda iyo inta guriga la joogta waa inay macnaha ay xijaabka bartaa wanaagiisa in kuleel iyo waxba lagu arkayni ee dhib badan in lagu arkayni oo wanaagsan yahay macnaha oo ilaa oo ku hogaaminayo macnaha wadada ilaahay waa inay macnaha ku baraarujisaa ehelkeeda ayada marka hore waa inay daa'imtaa xijaabka ay iltisaam ku samaysaa ثانيا معناه إن يدك معناها أهل كذا أقرباء برتا إيه صاحبة إنه حجاب كوناكسين عده هي سنين عده هي ستان أو حجاب كذا قفيف هينا كان لها بأي شروط مقشين إنها معناها أو شرح إذا لو باهي هي قبل محجبات وحلو باهي إن علم هذا كرسته سي أي معناها نبي هذا الكيس أرمي سؤال بلغوا عني ولو آية
معناها إني أي جارسي صدق كله واد مهسنتي إن شاء الله تعالى مسلمة بان هاي إسلام كان كسعونيا أواميرتي اللي آيادهم برتا أحزاب إيا النور أحكام تان إلاليا أحاديثتي رسول كانوا أرورنا ninkii igu eeda iyo kii eegi karin ihaanada alle ayaa aadamaha ka daran asturka dhigi maayo ifka asturka dhigi maayo intaan ifka saaranahay asturka dhigi maayo intaan ilka laygu ridin xijaabka wanaagsan rabbiga inoo iftiimay xijaabka wanaagsan rabbiga inoo iftiimay ninkii wax ka sheega rabbiyo wadnaha ka qabo inta ayaanu guud ahaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena kulanka xamdi oo aanu kaga hadlaynay xijaabka iyo faa'iidada xijaabka uu leeyahay waxaan u mahad celinayaa gabdhihii barnaamijka nagala qayb galay Maryan Shariif Zainab Faadima Ayaan Fardowso iyo Ijaabo waxaa sidoo kale u mahad celinayaa gabdhihii waqtigooda soo siiyay oo ka kala yimid xaafadaha magaalada Nairobi intaanu dib hawada ugu kulmi doono sida iyo nabadgelyo waxaa mudnaan leh Fardowso iyo Ijaabo oo iyaguna isku howlay qabsoomida barnaamijkan waxaan idin leeyahay ajri xasanaad Allah idinka siiyo kulligeed